iyadoo culays aad u weyn hadda uu fuulay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre lagana yaabo inuu degdeg xal hadii aan loo helin booska u banayn doono waxay u muuqataa in waqtigii farmaajo ra'iisul wasaaraha ahaa 7 sano ka hor sanadkii 2011 weeyaan duufaanadu ay jireen bilihii June iyo July ee xilligaas kadibna lagu qasbay in xilka iska casilo isagoo baarlamaanka horjooga ayaa waxa la sheegayaa in tabtaas oo kale hadda qorshe loogu maleeyay Xasan Kheyre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Kheyre ayaa ku fashilmay in si cad uu uga falceliyo arinta qalbi dhagax dhibistiisii loogu gacan galiyay dawladda Itoobiya waxaana taasi ay keentay in jawiga uu noqdo mid kacsanaan ah oo lagu furo xukuumadda jirta 2 bil gudaheed ayaa waxa xilka iska casilay 2 wasiir oo saameyn lahayd xukuumadda Soomaaliya 3 bil ee la soo dhaafay waxay xukuumaddu wajahday muujado siyaasadeed waxaana la tilmaamay in qalbi dhagax dhibistiisii ay sabab u noqon karto iscasilaada Xasan Cali Kheyre qudhiisa badweyn.com ayaa xog ku